soo dhaweynay caawa farxad weyn oo ah wasaariyaha hore Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku yimid waddanka laakiin waxaan aad iyo aad farxad weyn ugu ah taageerada shacabku muujiyeen sida loo soo dhaweeyay loo kala hadlay aad u faraxsanahay in kastan soo dhaweeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo yahay madaxweynaha hadda aan rajaynayno inuu waddanka qaado marka ma sha Allah farxad daraadeeda inta kuma soo koobi karo waxaan dhihi lahaa aan ku qiyaasay inay ka badan yihiin 500 qof ayaa soo dhaweynay taas marka waxay muujinaysaa mudane Farmaajo sida loo jecel yahay loona soo dhaweynay maxaa yeelay Soomaaliya ayuu wax ka bedelay muddo gaar bulshada Soomaaliyeed Farmaajo waxa uu jeclaatay wax qabadkiisa runtii bulshada Soomaaliyeed waxa rabaan nin wax u gala ma rabaan dadka wax qiyaamay marka sidaas darteed waxaan leenahay 4.5 ma dooneyno waayo 4.5 hadii lagu soo doorto hadhow xildhibaanada waa la gadanayaa marka Farmaajo anaga sidaas darteed 2016 hadii uu rabno inuu ku soo laabano aan diidno 4.5 Soomaaliya kor dhammaan Soomaali way wasalaamaya Farmaajo mulkiisan salaamaya salaamu calaykum dhammaan cawaseetihiin والله وجد برشة الأميات وكعسن نكان إنه عقبته حلكة مركا وحليها حتى حكليها دتك سياسيين تسكو شيء جايو الشعب كصوماليين سيدا درت هذا دورتان محمد عبد الله فرماجو أسيق أيها لقي يابا إنه ودن كنبت كسر عليو فرماجو أقوليس فرماجو أقوليس